السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سولو هذا دمان خيارتك وحين جنركين اكسبرت اوبشن سومالي ان شاء الله عواني وحن صنيا ايا وحن قادي وهي عدسينا متى ما جعل نمر بعدسينا تحقليو عدسينا عاو ياي سيدي الله سمعيا ونكسبت هافك وفد ونكسبت الله سمعيستو اوكي ان شاء الله ونكسبت كيني واكن حق انو يالا sidan markaynu wanagshbad dhexdiisa soo galno waxaad ku dhufanaysaa waxaad raacdaa mar walba baashacaas meeshaan ku saarayo waxaad ku dhufanaysaa meeshaas saddex falaarood iska saaran kadib waxaad ku dhufanaysaa meeshay ku qoran tahay registration ayaa saan ugu dhufanaysaa kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay one click markaas aan ugu dhufatid dhalinyaro badan oo soomaaliyeed wax arkay waxay ka boodaan halkan meel kaliya waxaad saxaysaa barta ay ku qoran tahay shilin Soomaali ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad ka dhigaysaa USD dollar oo xaggan kugu qoran ayaad ku dhufanaysaa kadib markaad ku dhufatid kaliya wax kala bedeli maysid halka aan baa saxanaysaa confirm baa oranaysaa kadib waxaad taabanaysaa calaamadda saxniinka markaad ku dhufatid si automatically wuxuu ku siinayaa userkaaga iyo pinkaaga kadib markuu userkaaga iyo pinkaaga siiyo intaa ka dambeeya wanagshbadkaagii uu ku furan yahay kaliya bis waa kan wanagshbadkaagii waxaad oranaysaa copy kadib waxaad ka qaadanaysaa screenshot markaad intaas samaysid waxaad ku dhufanaysaa meeshay ku qoran tahay next markaad saa u dhufatid isagaaba kuu saaraya waayo horaad copy usoo tiri kadib waxaad oranaysaa login kadib waxaad ku dhufanaysaa login already imika wuu ku samaysan yahay applicationkaagii kaliyaata meesha waxaa soo furanaysaa halka markii aad saddexda fariir oo xariiqooda studio ku dhufatid waxaad ku dhufanaysaa lambarka markii aad lambarka accountiga ku dhufatid kaliyaata meesha waxaad oranaysaa meeshan ay ku qoran tahay sheegay personal information magacaaga iyo xogta kusoo buuxinaysaa waxaan rajeynayaa inaad ila fiirsan doontid usernamekaaga waxaan ka dhiganaa iminka okay faarax baa inooga dhig faarax okay waxaan rajeynayaa inuu naga aqbalo faarax xoogaa yar kadib bay suganaa kadib waxaan eegaynaa inuu faarax aqbalo igana raalli ahaada cafan hadda waniga diiday waxaan ku dari doonaa faarax maadaama jabta ka badnaadaan faarax cali baynu ka dhiganaa waxaan rajeynaa inuu faarax cali inaga yeelo kadibna markaynu intaas soo gelino waxaas aweyn gelimayno waxaynu kaliyaata gelinaynaa xogteeni oo dhamaystiran aynu soo gelinay kaliyaata waxaanu sameynaynaa wax kale kuma sameynayno xogtaada way dhamaystiran tahay kaliya waxaad aad gelin doontaa lambarka aad marka kor ku dirsanaysid haddii kalena waa iska diin kartaa email waa ku xiran kartaa waa iska diin kartaa waxaana waa options laakiin muhiimadda waa inaad usernamekaasoo kala samaystaa insha allah waxaan rajeynaya inaad fahanteen casharkaas wixii su-aala ama talooyin insha allah waxaad igu reebi doontaan commentiga. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.